madaxweyne jananaare wixii qalad hore aanu galina kulli nalka saamaxay aanu jecelahay sidaasi waxa yiri Gamaal Maxamed Ducaal oo lagu naanayso baaxad oo hore uga tirsanaa ciidamada qaranka Soomaaliland balse muddooyinkii ugu dambeeyay dibad meer ahaa waxaanu saasi ku sheegay shir jarayd oo ku qabtay xarunta miiska saraakiisha ee magaalada Hargeysa waxaanu halkaasi uu ka sheegay inuu soo booliyoobay dalkiisa isla markaasina waqti xaadirkan diyaar u yahay inuu u shaqeeyo dalkiisa iyo dadkiisaba waxaan halkan ka cadeynayaa in aan soo noqday dalkaygii sida diraadidna aanu soo holoobay markaa dalkaygii markaa waxaan go'aansaday aniga iyo ciidamo badan oo ila socdo ciidankii markii hore ka tagay halka aan dalkayga dib ugu soo noqdo sidii aan hore ugu shaqeyn jiray aan ugu shaqeeyo Gamaal Ducaal Maxamed ayaa soo noqoshadiisa waxa ku soobeeyay kadib markii la saxay qaladaad uu sheegay inay deegaankiisa hore uga tirsadeen xukuumaddii hore ee Soomaaliland markii aan arkay xukuumaddii hore oo wax badan deegaanka gobolka Sanaag ay ka jirtay markay qabsatay xukuumaddan dambe ay wax badan bedeshay markii madaxweynaha cusub qabsaday Muuse Biixi Cabdi Gamaal Ducaal Maxamed ayaa Hon Cable TV waxa uu weydiiyay sababta uu qaladka uu tirsaday ugu soo bandhigi waayay mas'uuliyiinta dawladda iyo taliyihiisaba ka hor inta aanu ka soo horjeesan ciidanka qaranka Soomaaliland ma way ahayd inaan idhaaho laakiin ka degdegay laakiin way ahayd inaan idhaaho waana ku banaanayd in arkaasu inaan kala hadlo madaxweynaha ama jankan gamubka xukuumiye marka goobta joogay haystay inaan kala hadlo bay ahayd anigu madaxweynaha toosin xukuumiye jankan xukuumiye jankan inaan u sheego xaq baan u lahaa hadana waan ka yara degdegay anaan khalad Maxamed Kuraase Hon Cable TV Hargeysa